waxaa la yidhi haddaan qisada ka sheekeeyo nin baa qabiil xukumi jiray oo madax ahaa deedna ninkaasi mar kasta wuxuu isku day jiray inuu si cadaalad u shaqeeyo wuxuu isku day jiray inuu si hagaagsan oo wanaagsan u maamulo deedna waxay odhan jireen qabiilkiisu horniyo naga daayo xaqa noo soo dhici oo xaqayga dadka xaqooda laftigooda wax ka farageli oo waxay ninkaagan dadka isku madka naga dhigayo oo waa kan sidii loogu maagay markii dambe wuxuu ninkii yidhi markuu deen ashii soo dhawaatay waa nin midku yaqaan buu waxaan rabaa uu xanuustay geed baa loo waabay uu dujiifay maalin dambe buu yidhi waxaan u baahanahay maanta shir buu ilaamiyey waa la isugu yimid wuxuu waxaan u baahanahay nin dhalinyaro ah oo weliba ninka dhalinyarada kuwa dhasheen ugu doqonsan aan xoolo loo dirsan ee aan dagaal ka qayb gelin baan rabaa inaad ii keenta oo maxaad ku fadhi magtiisa oo boqorkaadan bixinayaa hay waxaan u baahanahay nin weyn baan ahay waa geeriyoonayaa ninkaasi markaad i aastaan inaad iilka ila geysa oo iilka ninkaas igu heliyeelo magtiisana waa bixinaya ninka waa dhimayaa la dhaho geed baa loo baxay oo waa nin kastaa wuxuu damcay inuu hadhowto wiilkii la qorsheeyo oo ninkee baa ku daray wiilkiisa yidhi boqol haraad qaado waa la waayay nin keliyo ama ha dhimanan ama ha dhamaayo wiilkiisa yidhaahda ninkaas aan weliyeelayo aaska soo ugu daray waa la soo noqday iyadoo gorda la laadin madaxa la furniyo yidhi arrinkii weynayniyo waxaad madaxdiiba ahayd adaa odaynoo ahaa laakiin ina yaroo dhiman ama ha dhiman aan kuu darno maxriyaan ahaad wuxuu doon ahaadee weyn wuxuu yidhi waa yahay sidaas waxaa keentay buu yidhi haddii aanan markaan shaqaynayay aan cadaalad ku shaqaynin maanta halkaa waxaa igu weliyeeli lahaa bahalo iyo abeesooyin laakiin waxaan rajaynayaa inay igu heliyeelaan camalkaygiioo wanaagsan oo barakaysan oo khayr qaba inay igu heliyeelaan baan rajaynayaa sababtoo ah idinku waxaad doonayseen halkaa inaad igu haligtaan oo aad markaa igu shaqooshaan aad igaga baxdaan hindhowta camalkaa xun waad aragteen wiilka igu qurwiyey halkaasaan doonayay cadaalad ka shaqaynayay in halkaas ila galaan camal wanaagsan oo waxaan doonay ii ahaada deedna wuxuu ilaahay bay sulisay mahadda iskale war nin kaste oo ka shaqaynaya xume iyo dhibaato iyo dilow ama labada qabiilaha ahaada ama qabiilada Soomaaliyeed ahaada ama qabiilada ku shaqaysto qof kastoo waxaad ogaataa waxaad ka shaqaysatay ee maanta aad ka shaqaysatay baa la gudgelaysaa kaasaa kugu heliyeelaya qof kastoo ugu wixii wanaaga aad ka shaqaysatay hadduu yahay nimcaad ku noolaanaysaa farxad baad ku noolaanaysaa godkaana waxaa kula gelaya wax wanaagsan haddii aanad waxun ka shaqaysato oo xunna abeesooyin iyo inkaar iyo dhibaato kula geliso waxba kuu tarimaya qabiilka dagaalamso waxba kuu tarimaya dil aad geysatay waxaynu doonaynaa walaalayaal inuu ahaano haddaynu ummadda Soomaaliyeed nahay wardad cafis iyo dhaafid iyo khayr iyo wanaag ka shaqeeya dad isu tanaasula baynu doonaynaa asina walaalayaal insha Allah naftayda iyo nafteeda ku dadaarmaya colaadda ka taagan halkaas dhuman iyo agaarkeeda ee labada qabiil dhex taaganna waxaa inaga waajiba inaynu hadal iyo gacan iyo waxtar khayr iyo aynu ku geysano haddii ay soo noqoto 100 jeer iyo haddii 20 soo noqotoba war waxaan shaydaan baa ka shaqeynaya aan nasanayn dadka khayr qabayaasha ee wanaagsan ee ilaahay mufatixo khayrka cunto inay nasan inay caajisin inaan waa loo taag waaye laga shaqeeyo oo shaydaanka la kibir jooyo oo la baabiyaa la doonaya awshaas islaax iyo wanaag aga dhasho tasina doonina aad iyo aad u mahadsantihiin Allah idin barakeeyo hayna barakeeyo dhamaan adduun iyo aakhiraba ilaahay ummadeena dariiqa saxda ah ilaahay ku hadeeyo